السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaan naga daawanaysaa waa naan coof official tan lagu cusubtahay fadlan subscribe noo saar like sii share garay oo sii gaarsi asxaabtaada. degmada Balcad waa degmo ka tirsan degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. haatana waxaa maamul goboleedka Hirshabeelle. degmada Balcad waxay dhanka waqooyi ka xigtaa magaalada Mogadishu qiyaastii 36 kiiloomitir ilaa 35 kiiloomitir. waana deegaan qadiimi ah oo leh xadaarad kala duwan. magacyada loo yaqaanay degmada Balcad waxay ahaayeen Taytayle iyo Ciryaamooly, halkii markii dambena loo bixiyay degmada Balcad. degmada Balcad waxay leedahay ilo dhaqaale oo muhiim ah kuwaasoo ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanka. waa kuwo ku tiirsan wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale dhaqashada xoolaha. degmada Balcad waxaa hoos yimaada deegaano dhowr ah oo qiyaastii lagu qiyaaso 74 tuulo, kuwaasoo ay ka mid yihiin Dololey iyo Hiilweyne iyo qaar kaloo fara badan. degmada Balcad waa degmo leh goobo qadiimi ah sida warshada dharka, buundada Balcad iyo kuwo kale oo aad u fara badan. buundada Balcad sida ay taariikhdu qorto waxay ahaayeen 2 buundo. waa mid la dhisay 1945tii taasoo ay burburtay. haatan midda shaqeeda waa midii la dhisay 1975tii. sidoo kale degmadu waxay leedahay malcamado qur'aan iyo iskuulo. sidoo kale waxa ay leedahay isbitaal dhawaan loo dhisay deegaanka iyo isbitaallo yaryar oo ay leeyihiin hay-ado ayna maamulaan hay-adahaas. waxa ay leedahay suuqyo sida suuqa qudaarta iyo kan xoolaha. waad ku mahadsantihiin daawashada la daawateen. fadlan ha naga hilmaamin inaad subscribe noo saartaan. sidoo kale waxaan iskaga mahadcelinayaa waqtigiina aad noo horteen.